maanta ay taariikhdu tahay 25kii bishii December 2021 waxaa shir isugu yimid xubnaha guddiga heer federaal ee FIT. shirkaasi wuxuu daba socday markii xubnaha qaar ka mid ah soo jeedin ka sameeyeen in gudoomiye Maxamed Xasan Ciro ay ka keenaan mooshin ama eedeymo guddiga doorashooyinka heer federaal markii uu isugu yimid shirkaas kadib isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran ee loo igmaday ilaalinayana hanaanka iyo habraaca heshiisyada doorashooyinka kuwaasoo sal u ah inay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo natiijadeeda la isla aqbali karo lagana fogaanayo dhammaan wixii geedi socodka doorashooyinka carqalad u keeni kara ayuu guddigu wuxuu halkan eedeymo ugu soo jeediyey gudoomiye Maxamed Xasan Ciro. eedeymahaasi waxa ay qornaayeen sida tan: in gudoomiye Maxamed Xasan uu ku xadgudbay ama xadgudub joogto ah oo ku hayay sharafkii iyo karaamadii guddiyada doorashooyinka, inuusan wax wada tashi ah la samaynin guddoonka iyo guddiyada intiisa kale, in uu lumiyey madax banaanidii guddiga doorashooyinka isla markaana baalmaray xeerarkii guddi hoosaadka u yeelay iyo habraacii guud ee doorashada dalka, inuu iska qaato go'aamo khatar u keeni kara doorashada oo aanu guddiga waxba ka ogeyn kuna matalin, inuu sabab u noqday guddoomiyuhu inuu xumaado xiriirkii ka dhaxeeyey guddiyada dhexdooda iyo golaha wada tashiga qaranka, wada shaqayn xumo u dhaxaysa guddoomiyaha iyo guddiyada doorashooyinka siid, guddiga xalinta khilaafaadka iyo golaha wada tashiga qaranka. haddaba intaa kadib dood dheer oo ay yeesheen guddiga ayay waxay isla qaateen go'aankan. markii uu guddigu arkay qiimeynna ku sameeyey culayska baaxadda leh ee doorashada, markii uu arkay xadgudubka iyo ku-takrifalka awoodeed ee guddoomiyaha, markii uu arkay inuu ka tallaabsaday qodobada 13aad faqrooyinkiisa 3aad 4aad iyo xeer hoosaadka guddiga, markii uu xaqiiqsaday in guddoomiyuhu fulin waayey qodobka 17aad faqrooyinkiisa 1aad 3aad 4aad iyo 6aad ee xeer hoosaadka guddiga, markii uu eegay kala aaminbaxa iyo kalsooni darrada ka dhaxaysa guddiga, xubnaha guddiyada doorashooyinka iyo guud ahaan inta doorashada ku lugta leh, markii uu ogaaday xiriir xumada guddoomiyaha iyo guddiyada kale ee doorashooyinka ee golaha wada tashiga qaran, markii ay u caddaatay in horay guddoomiyaha loo siiyey digniin af iyo qoraalba ah sida uu xeer hoosaad ka dhigayo, markii uu arkay inuu ka dhaga adeegay dhammaan talooyinkii xubnaha guddigu ay u soo jeediyeen kuna sii socday xadgudubka iyo ku-takrifalka xeer hoosaadka iyo xeerarka kale ee anshaxa doorashooyinka, wuxuu guddigu garwaaqsaday maadaama ay tahay doorashadu mas-uuliyad wadareed culays badan oo la rabo dalka in laga samata bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan, guddigu waxa uu isla garwaaqsaday in guddoomiye Maxamed Xasan caqabad ku yahay geedi socodka doorashada oo aanu sii hogaamin karin guddiga ama doorashooyinka guud ee dalka. sidaa daraaddeed markii loo qaaday codka kalsoonida oo xubnihii xaadirka ay u qaadeen sida uu xeer hoosaadku qabo, waxay kala laabteen xilkii guddoomiyenimo si waafaqsan xeer hoosaadka oo guddiga qabo. aad iyo aad u mahadsantihiin.